بسم الله تاريخ مركز هاي سدحدي بشي سديداد 2017 محكمة الدرجة كوباد عيدمada qalabka sida waxay markii saddexaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedeysanayaal kow Xasan Cali Xasan Keerow 25 jir ah ina Edebo Xasan Ibrahim ku dhashay Bakool labo Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiidow 22 jir ah ina Shukri Sheekh Siyaad ku dhashay Xamar kuwaas oo xafiiska xeerdaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab una qaabilsanaayeen fulinta dilalka ay kooxda qorshayso iyagoo si bareer ah u dilay marxuum nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen taariikhdu markay ahayd labadii bishii 11aad 2016 dimbigaas oo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir taariikhdu markay ahayd 22kii bishii 8aad 2017 gacan ku dhiigle shabaab Xasan Cali Xasan Keerow labo gacan ku dhiigle shabaab Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiidow waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum Ekis nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha 1aad 2019 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka